أهلا وسهلا ومرحبا بكم. درsigan wuxuu ku saabsan yahay oo aad ku ogaa doontaa gudihiisa inta aan ku guda jirno. waxaad fahmi doontaa ahmiyadda ay leedahay barashada naxwaha. qaala Khalid al-Azhari raximahullahu tacaala wuxuu tilmaamay ina macrifata al-icraabi min alwaajibaat. icraabkii oo la garto wuxuu ka mid yahay waxyaabaha waajibka ah allatii laa budda likulli taalibi cilmin, taasoo uusan ka maarmin qof walboo cilmi raadinayo. wa min almuhimmaat, waxyaabaha muhiimka ayuuna ka mid yahay cilmiga naxwuhu, allatii laa yastaqnii alfaqiihu canha, qofka faqiiha ah ee cilmiga fiqhiga baranayo uusan ka maarmi karin. mumtaaz. sidoo kale faqiiha la yidhi yacni qofkii waxaa kasii daran qofkii yacni mufasirka ahaa oo tafsiirka iyo qofkii xadiiska iyo howlahaas oo dhanba waxay ku tiirsan yihiin qofkii inuu yaqaano cilmiga naxwada. qaala Sharafudiin alcamriidi wuxuu leeyahay asigoo sharaxayo matniga ajruumiga, natmul ajruumiya kitaab la yidhaahda ayuu leeyahay oo gabay oo u bedelay matniga ajruumiga ah. النحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهما. wuxuu tilmaamayaa naxwuhu waxaa weeyaan waa mid haboonaansho badan in la barto marka hore. النحو أولى waa mid haboonaansho badan naxwuhu awalan marka hore an yuclama in la barto. sababta uu ku cileeya maxaa waaye hadalkaba macnaha naxwo la-aan ma la fahmi karo. waa hadal meel qoran oo uun adigu aad akhrisatay uuna noqonayaa maahane meesha laga socdo, waxa laga hadlaayo, meesha loo jeedo waxba ma ka fahmi kartid. waqad axsana man qaala, waxaa ixsaan falay qofkii dhahay annaxwu zaynun lilfataa yukrimuhu xaysu ataa man lam yakun yacrifuhu faxaquhu an yaskutaa. naxwuhu zaynun lilfataa, qofka dhallinyarada ee wuxuu u yahay qurux, yukrimuhu xaysu ataa, meel allaala meeshii uu tago naxwuhu qofka wuu maamuusayaa. qofku haddii uu naxwaha yaqaano oo uu khudbo jeediyo amba uu yacni mas'ale ka hadlo, waxaa waaye qofkaasi qof waxaa waaye karaamaysan buu noqonayaa. man lam yakun yacrifuhu, qofkii aanan garahaynin naxwaha, fa xaquhu an yaskutaa, wuxuu xaq u leeyahay inuu aamuso. inuu hadlo maba ahanba, waayo khaladkiisa aad u fara badan oo wuxuu doono iskaga hadlaa. waana jiraan dad badan oo sidaas oo kale akhtaadooda ay aad u fara badan tahay oo naxwo garanaynin oo ducaadna isku magacaabay, daaciyaan nahay uu ku leeyahay, wuxuu doono u sheegi, dee waxbana garan maayo. marka naxwuhu in la barto muhiim waayo. waqaala aakhar, mid kalea wuxuu yidhi wakayfa yartaqii ila almacaani man laysa daa naxwin walaa bayaani. wakayfa sida yartaqi ou ugu dalacayaa ila almacaani, macnihii sidee macnaha yacni kelimad walbo iyo macnaheeda siduu ku gaarayaa man laysa daa naxwin walaa bayaan, qofaan dee naxwoba waxba ka garahaynin, dee waxba ma fahmi kari qofkaas. sheikhu marka wuxuu leeyahay walilasafi waxaa aad wax looga xumaada ana kathiiran min annaasi laa yafhamu bicilmi naxwi. in badan oo dadka ka mid ah ma garanayaa naxwaha. yaquulu naadim raximah llahu tacaala wabacduhum yuftii wahuwa jaahilu icraaba bismi illaahi canhu daahilu. qaarkood wuxuu leeyahay wuxuu jawaabayaa su-aal wuxuuna jaahil ka yahay bismi illaahi in la icraabo. haddii aad tiraa maanta icraab bismi illaahi maxaa waaye, maxay ka kooban tahay, yaa isma, yaa ficil, yaa xarafa, yaa maxduufa, yaa mawjuuda, kulli haddaa weydiiso dee waxba ma cadday karo. wamaca dalik yufti, su-aalihii buu ka jawaabayaa. shiiqaan ahay buu leeyahay, qadka soo galayaa, meel buu soo fadhiisanayaa. waa waxyaabaha cajaa'ibta lahoo lala yaabo. falaysa min ahli lisaani alcarabi wa fi lusuuli maa lahu min arabi ومثل هذا لا يكون مرشدا لجهله النحو
wa mima unshida. marka qofka saas oo kale wuxuu leeyahay oo aanan luqadii carabigiina waxba ka garanaynin, usuulkiina oo uusan xaaje ka lahayn oo iska socdo, qofkan oo kale qof wax hanuuni kara ma asaaba hanuunin u baahanba, murshid ma noqon kariyo, maxaa yeelay naxwihii buu jaahil ka yahay